waa afurkii labaad sidii hore loo sheegay ee aynu samaysanno sanadkii dhowto waxaana dhaafiyey covid-19kii markaa dee sidii la sheegay intii inaga dhimantayna horta waa u ducaynaynaa intii nagu soo kordhayna waa hambalaynaynaa insha allahu sanadkan sanadkiisa inagoo wada caafimaad qabnaa koley inagoo wada nool gaari mayna waa laga yaaba lakiinse inagoo caafimaad qabna badankeedu ayaa inagu ducay inu gaadhno wuxuu masar dul taagayaa baanka dhexe sidii la sheegay horumar weyn buu sameeyey innaga mas-uuliyadda weynayna saarani ee baanka dhexe saarani waxa weeyaan dejinta dhaqaalaha dalka siiba sicir bararka iyo qiimaha shilinka somalilan labadaas baa halbowlo u ah shaqadeenna maantaan eegayey statisticska inflationka somalilan ka jira abril shiina dhaaftay waxaa 2.3% marka loo qiyaaso maraykan oo ah 2.6% oo waddanka caalamka ugu dhaqaalaha weyn waa 2.6 inina waa ka hoosena 2.3 ayaynu hoos u gaadhnay sacuudiga oo ka mid ah dalalka ugu hodansan caalamka waa 4.9% uu inaga sicir barar badan yahay ruushka waa la mid 5.6%. markaa waxaad arkaysaa in aynu meesha ugu hoose ka jiro ama aanu jirinba sicir barar iminka waddanka somalilan taana waxaa sababay waa dejinta qiimaha shilinka oo 8,500 aan wax badan kor u dhaafin hoosna uga dhicin inflationkana wuxuu ku xidhan yahay qiimaha shilinka hadduu qiimo dhaco korba ayuu inflationka u kacaa markaa because waxaa deganaa qiimaha shilinka 2 sannadood iyo badh taasaa keentay inaanu sicir barar weyne aanu dhicin waa ilaahay mahaddii waa ku ammaannahay talabaad xawaaladaha saddexdan biloodii ugu horreeyey iminka 300 milyan baa waddanka soo galay marka loo qiyaaso sanadkii hore 2020 ilaa march 44 milyan baa kor u kacay xaggii xawaaladaha waddanka soo gelaayey iyadoo weliba sanadkan uu jiro covid-19 oo sanadkii hore march aanu jirin ayay kor u kacday taasina waa alxamdulilah 17% ayay kor u kacday xawaaladihii waddanka soo gelaayey marka ilaah baa meel kale inaga asturaya dhaqaalaheenu ma wanaagsana oo day wada caajis baynu nahay maalinta 4 saacadood baynu shaqaynaa haddaynu reer somaliland nahay ma lihin production wax ma beerano tamaadho ma beerano basal ma beerano dabadda inooga timaadaa dadkeennu ma shaqeeyaan sagaalkaynu soo gallaa 12kana waa out baynu nahay markaa ma lihin production inagu aynu ku faani karno marka xagga ilaahay baa ilaahay muxuu ahaa isaga qaadira oo ina ilaashanaya waxaan ku soo gebagabeynayaa aad iyo aad baan shaqaalaha ugu mahadnaqayaa guulaha baanku gaadhayna qaybta weyn ama 80% idinka ayaa keenay waxaynu gudagalaynaa bixinta abaalmarin sanadeedkii guddoomiyaha baanka maanigaa ku dhawaaqamsa guddoomiyahan u dhiibaa talow waay guddoomiyaha bismillahi raxmaan raxiim sanadkii hore gabadh shaqaalaha baynu siinay abaalmarinta sanadkan qof siimayna waxaanu siinaynaa branch laan sanadkan waxaa mutaystay laanta saddexaad ee dembuluq waxaanay ku mutaysatay haddii aan sababeeyo sanadkan january february march abril ayaanu dhaqaalaha ama dakhliga laamaha eegnay intay soo hooyeen 12 branch mid walba intay soo hoysay baanu eegnay waxaa loo qiyaasay sanadkii hore 2020 laanta saddexaad 535% 535% buu kor u kacay dakhligeedii waa wax lala yaabo weeye 535% muddo 4 bilooda waxaan leeyahay 3 bilooda 4 bilooda haa markaa sababta ay abaalmarinta ku heleen waxa weeyaan dakhligii ay soo xareysay laanta saddexaad ayaa 5% kor u kacay laamaha kale waa jiraan qaar 17% 16% qaar hoos u dhacayna way jiraan oo hoos u dhacay markaa waraaqaanu idiin soo wada qorray lamahoo dhan laan waliba ka arkayso halka ay ka gashay
markaa laamihii kor u kacay haddayana isku khaldin bersentageka iyo forumka xagga dakhliga ugu far badan laanta xaruntaa soo hoysay waxaan ka hadlaya waa bercentage intay sanadkii hore soo hooyeen iyo intay iminka soo hooyey marka la suuqaya sugayey maaha yani lacag fara badan bay soo hooyeen markaasaasay ku heshay ardo iyo shaqaalaheedu waa ku hambaryaynaynaa hambalyo laanta saddexaad ee dugulub maamul ardayda tiimkeeda waa u hambalyaynaynaa dakhliga ay kordhiyeen 555%. hambalyo ayaan leenahay halkan maro maamul dareenkaaga balkoor waxaan aada ugu mahadnaqayaa dhammaan shaqaalihii ka soo shaqeeyey arrinkaa heerkaana waxaana gaadhsiiyey guddoomiyaha baanka somalilan oo ku shaqo lahaa dhaqaajinta iyo shaqaynta iyo qurxinta laanta noona tixgeliyey inaanu wax soo saarka iyagu kor u kaco aad baan ugu hambalyaynayaa guddoomiyuhu wuxuu dhaqaajiyey laanta wuxuuna ka shaqaysiiyey laanta isaga ayaana gaadhsiiyey heerka ay maanta marayso aan rabnana inaan kor uga sii qaadno shaqaaluhuna waxay sameeyeen inay ku dadaalaan horumarinta shaqada laanta